إيران نقو حوجا مش أي عريرة إلهي كان محا أنت كان يا محاكو هاد ليسان إنك إيجي waxaan ku dhahay waad maqashay laakiin hor wad ogta 22 jir waaye waan ogahay anigaba adiga markii aan ku guursanayo waxa aad jirtay 22 sano وسيم sidee ka noqotay waqtigaas iyo waqtiga way kala duwan yihiin imtixaankeedu ugu dambeeyay wila iyada ma aysan gelin wiilka cidiisa waan la hadlay mar dhowna farantigiriska uu dhacayaa iyada markay waxbarashada dhamaysato kadib guurka ayaa si toos u dhacaya laakiin macnaha guuri hadii aad doontid laakiin aniga inaad ii sheegto adiga ma kugu soo dhici weysayna okay teedii iska ilow gabadha aad rabto inaad guurso weydiisid nuura sideen wax weydiinayaa iyada waxay rabta ayay samaynaysaa adiga maxaa rabtayna zooyaa kale inay guriga noo joogtaa zooyaa wax walba inaga dalbatay waan u samaynay waxay jecesha oo dhanna way samaysanaysay xitaa waxaan jaanis u siiyey wax walba ay jeceshahay in ay samaysato iyadana maxay samaysay rajadeenni iyo nolosheenna ayay ku ciyaartay zooyaa laakiin si qalad ay sooyaha gashay cadaalad maa nuuro in loo inqaabo ninkeeda isiga dheh arrintan ma raba aniga in aan ka sii hadlo hore ayaan go'aan uga gaaray go'aanka aan gaarayna haddii aad rabtid nuuro la socodsiiye maxaa waaye waxa la ii sheegaayo hooyo maxayta aabbo wuxuu ka hadlaayana maxaase ku dhacay ii sheeg hooyo adigaan kula hadlaayaa maxaad uma maqan tahayna hooyo sidee wax u jiraan aabbaha wuxuu go'aansaday inuu ku guuriyo adiga iya inuu i guuriyo miyuu go'aansaday wiilka reerkiisa ku imaanayaan hooyo
subax wanaagsan may fadhiista aniga ii istaagina fadhiista sidaad wada ogtihiin dhammaantiinaba shirkaddeena waxay maraysaa xaalad xun waa arrin murugo leh teeda kale dhammaanteen waanu wada ognahay walaalkayaasha shirkaddan inuusan maamulo keliya ka ahayn wax walba ayuu u ahaa sidaas darteed ayaan shirkan maanta u qabanay si aan uga hadalno mustaqbalka shirkaddeena oghaadi marow adigoo raalli ah war aniga lacagteena ayaa sii weynuna sida ugu dhaqsiya badan waa inaad shirkaddan gadnaa haddii kaleeto lacagtan ayaa ku khasaaraysa meesha igaraha marka isdejiya waa idin baryaa waxaan isdejiya waan ku baryaaya wax lee dhehno waayahe maxaan dhahayaane waa u jeedaa qof walba wejigiisa xanaaq fara badan ayaa ka muuqdo lacag ayaa u daran dadkan qof walba wuxuu rabaa lacagtiisa inuu helo ayagoo dhanna waxay rabaan shirkaddan in la gado laakiin mahiyaas riyadiisa waaye waan ogahay walaalkay riyadiisa inay tahay laakiin dadkan oo dhan lacagtooda intaan ugu keenaynaana annaga waa u jeedda dadkaanoo dhan way xanaaqsan yihiin jabigoo dhanna wuu khaldan yahay marka iga raali noqo arrintan aniga waxba kama qaban karo iga raali noqda waani baryaa hal mar imaqla yaaqe waani baryaa hal mar imaqla yaaqay hal maroo keliya dhegaysta maad imaqashaan aniga imaqla yaaqay waa idin baryaa fadhiista fadlan fadhiista waan ogahay aniga inaydan i aqoonin idinka laakiin waxaan ahay sooya arooraa micnahayga yeesh xaaskiisa marka hal maroo keliya dhegaysta sawirkan aad arkaysa waxaan iska qaadnay maalintii arooskeena annaga faamiligeenna arooskeenna way ka soo horjeedeen sidaas darteed annaga go'aan waxaan ku qaadanay si noormale inaan isku guursanno laakiinse annaga xiriirkeenna wuxuu ahaa xiriir awood leh sidaas darteeda miyuu ninkaaga naag kale xiriir ula sameeyena waa idin baryaa 2 daqiiqa bis dhagihiinna isiiya shirkaddan iyaas riyadiisa ayay ahayd shirkaddan waxaa la aasaasay aniga iyaas markaan isguursanaynay weliba aniga waxaan ka ballan qaaday yeesh asaga iyo shirkaddiisaba inaan aniga marnaba aan soo dhexgalaynin sidaas ayaan ka ballan qaaday weliba ninkayga wuxuu ii ballan qaaday shirkaddan inuu ka dhigayo shirkad heer saraa oo weliba caalami ah anigana maalin maalmaha ka mida aan ku faanayo oon dhihi doono shirkaddan waa shirkadda ninkayga yaash idinka hadda waxaad isweydiinaysaan aniga sababtaana halkan u imaaday iyo xiriirka naga dhexeeya laakiin midtaas xataa ha fiirinina aniga idinka xataa xiriir ayaa naga dhexeeya maxaa yeele shirkaddan ayaa noo wada dhexayso arooska waa kalsooni iyo weliba mas-uuliyad hal qof oo keliya mas-uuliyadda ma qaadi karo waxaa loo baahan yahay 2 qofba in ay mas-uuliyadda wada qaadaan farxadda oo keliyana maahan qofka in aad garab ku siiso murugadana garab ayaa laysku siiyaa anigana halkan waxaan u imid inaan idinka garab idinka helo maxaa yeelay iyeesh hadeertaan asagana nama joogo oo garab annaga kama helayno waxaan rabaa aniga shirkaddan heerka idinka aad rabtiin in aan gaarsiiyo maxaa yeelay iyeesh shirkaddan waa asaga riyadiisa anigana ma rabo riyadiisa inaan burburiyo waxaan rabaa heer sare in ay noqoto waa idin baryaaya idinka ayaan garab idinka baahanahay dhammaantiin lacagta aad leedihiin waa idin siinaya keliya garab ayaan idinka baahanay waa idin baryaa waqti anigii siiya fadlan aniga marwazooya ayaa garab buuxa siinayaa
hooyadu way saxan tahay lagama yaabo shirkaddan in la xiro maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay in ay sii shaqayso waxaan u malaynayaa qofkaan ahay inaad isweydiinaysaan aniga waxaan ahay aditya hoda shirkaddan u jeedaan aniga shiir ayaan ku leeyahay si walba isugu dayda runta inaad qaris aniga waan ogaanayaa weliba waxaa balan mas-uuliyi maalintii wixii ka dhac adiga inaad qaranaysid inaan ogaado aabbaha wuxuu go'aansaday adiga inuu ninkuugu daro wiilka reerkiisa inay ku arkaan ayuu soo socdaa waan ka xumahay garaal noqo warkaal adiga maxaa kaa qaldanna indha malihidniya ka qaldan maxaa lahaa adiga seed ka seerleeda maxaad mari weysana aniga ayaa joga siisay weliba si qaldan haye dembigaago dhan aniga ayaa dusha iga saaraysaa ka waran bal war fiir ilaahay bini'aadanka laba indhood ayuu u sameeyey mise adiga indhahaaga ma isticmaashidne indhola'aan ayaa tahay teeda kale adiga qof magaaladan jooga maba tiida intee ka imaadayne mumbai ayaan ka imaaday haa aniga qofka ahay ma taqaanaana adiga okaade waxaad doontid ahaa waan ogaa inaan qalad kaa galay ma bixi karaa waa bixi kartaa dadka noocan oo kalena intee ka imaadeen adeerka guriga sadiiqii miyay tilmaami kartaan adiga yaa allah midkan adareyskeenuu baraadinoyaa ninku aabbe igu diri raba amuu yahane nuur adiga waa inaad wax samaysaa weliba sida ugu dhaqsiyaha badan iga raali noqo wax yar hay balaydii salaawad yaa kakaali hamar istaagno idhigeeso maxaa ku dar adereyskan aadaadinays aniga ayaa qarib kugu siinaya keen waad maasanta aniga raadsan kara ma yaaqay aniga waan kula raadinaya mideeda kale adiga xoogaa isfahmi waayaan dhex gasho soo maahan laakiin hadda wax walba waan xalinayaa annaga reer masuuriya haddaan ahay martida waan soo dhaweynaa marsiir ay joogtaa marka keen aan ku caabiye haa keen aan fiiriye qof walba qaladkan ayuu galaa bal fiir adreeska hadda lagu soo siiyey waa maxay qaladka kaleys adiga mansuur ayaa joogtaa hadda meesha ka imaad inaa kulaawatid waay adiga adreeskan mansuuri ma ahan marka meesha ka imaada kulaaba adiga dib u laaba haa ken kaalkaale magaaladan dadka jooga dadka wayba qaldaanbo siiba tagsiilayaasha adreeska ayaga aqoonina ku leeyihiin waa naqaanaa kadibna meel qaldanay ku geenaa waxaad watidna way kaa dhacayaan adiga laakiin waxaa mahad ah qof anigoo kale haddii aad la kulantay adiga mahadsanid adigaa mudan is ilaaliyaa baay idhegeyso basteejada basaska luuqaas waaya baay haddana ninka baska duurka ayuu la gelayaa kadibna sheeko aroosoo dhan ayuu iska iloobayaa asaga noloshayda ayaad baabi'isa adiga waa inaan noloshaada anna baabi'iyaa adiga waxaad baabi'isay magacayga iyo noloshayda anigana waa inaan baabi'iyaa magacaaga iyo noloshaada dhammaantood dhulka ayaan la galayaa adiga maxaa hay
yaash sawirkiisa maxaad ku samaysay adiga maxaad ku samaysay yaash sawirkiisa way ilo xumaatay wax ka bedel ayaan isdhahay soo sidaa uma qorxoona adiga akhlaaqdaada xaggee aadayna xabsiga aad gashay waxba ma kaa soo bedelin miya doqonnimada maa joojisida adiga teeda kale hadalka aad ku hadlaysa xitaa ma kuu xisaabna xoogaa xitaa maad yeerays akhlaaq daradan aad ku dhaqmaysid maxaa kaa khaldan qof weyn oo aad u eg tahay aamus fiiriya wiilyow aniga iga agta kadii kale boolis ayaan kuugu wacaa ilaa ii goormeed aniga boolis igu handadaysaa orda yeer booliska waxba laga yaabaa hadda kadib adiga inaad xiranto kelis ayaan kuugu talagalo weliba aad u qurxoon waa qaas adigaan kuugu talagalay maxaa waayane adigaa iskale fiiri fiiri ma naxda adiga anigaba hortaada ayaan naxay hadda ma ogaan kartaa shirkaddan qofka iska leh aniga waaba kaa xishooda haddii aan ku dhahay shirkaddan shir ayaan kula ahay runta ayaa waxay tahay shirkaddan qofka iskale qof kale maahan ee waa aniga wax walbo halkan yaallana aniga ayaa iska leh kursigan ha noqdo miiskan ha noqdo iyo wax walba horteeda yaala aniga ayaa iska leh mar alaabta haddii aan leeyahayna waxaan doono ayaan ku samayn karaa xitaa waxaan samayn karaa waxa meesha yaal oo dhan inaan burburiyo dhaladan hadda tuura ha ahaato ama adiga xitaa ilaa iyo lacagteeda aad igaga soo celiso adigoo dhan aniga ayaa ku leh waad ii shaqaynaysaa weligaaga aniga ayaa ku leh cabsidan iyo murugadan faraha badan oo wejigaaga ka muuqato ma midii uu ninkaaga kugu reebayaa mise aniga ayaad iga baqanaysaa oo waxaad is leedahay ninkaan dhibaato amaad kala kulantaa waan la socdaa arrinta sawirka ee subermarketka si fudud ayaad iskaga indhitirta laakiin arrintan kuu sheegi rabo sideed iskaga indhitiri doontaa ma inkiri kartaa xaaskayga adiga ninkaaga 5 milyan oo lacag in ay siisay haddeer ii sheeg beenta aad doonaysa inaad isku qanciso maxay tahay beenta aad mar labaad isku qancin doonto waxaad ogataa aniga ninkaaga inuu dhibaato fara badan israac oo ii geystay wax walba oo ii geystayna waxaan jeclaa inaan asagaan ka aarsado laakiin waan ka xumaya asaga haddeer dunidana nama saarno oo ma joogo balse adiga ayaan kaa aarsanaya waxaan ku baryaaya fasax aniga waan baxaya aniga iga leexo aniga ma baxsanaysaa xaggeed u cararaysaa si walbaad u cararto waxaad ogaataa runta inaad marnaba ka baxsan karin horena waan kuugu sheegay in aan aniga ku leeyahay anigan ku amrina tilaab aad qaadi karta ma jirto inta noloshaada ka dhima aniga ayaad ila joogaysaa riyo walbo ninkaaga uu leeyahay aniga waxaan diyaar u ahay waqti xaadirkaa inaan burburiyo maxaa yeelay riyadaas waxaa lagu dhisay aniga lacagteeda ilaa iyo adiga aad ka arkaysa runta waxa ay tahay oo dhan sidaan ayaan kuu daba taagnaanaya weliba inqaab ayaan ku marinayaa rubbi ayaan kula xisaabtamayaa waan ku baryaaya fasax fasax wax walbo aniga aan lahay ilaa dib aad igaga soo celiso adigoo dhan aniga ayaa ku leh aniga amar la'aanteeda xitaa ma neebsan kartid
riyo walbo ninkaaga u lahaa waxaan diyaar waaya waqti xaadirkan in aan burburiyo maxaa yeelay riyo walbo ninkaaga u lahaa lacagteeda ayaa lagu dhisay halo hooyo gabadhii sooyaa sidee tahayna nuura wakhtigii waa la gaaray guriga inay joogto maxaad ugu dalban weysayna aniga waan la hadlay waxaan u malaynaa inay soo socoto waan la hadlay maxaad ka wadaana wakhtigay rabta way imaanaysaa wakhtigay rabtana way maqnaanaysaa miya gurigaanoo dhan waxayba ka dhigtay guri asaga dhanba dhaqan iyo akhlaaq iyo go'aan midna aan lahayn aniga mar hore ayaan kuu sheegay zooyaa labaad ma rabo noloshaas xun mar ayaan dhadhamiyey anigana mar labaad inaan dhadhamiyo diyaarun ma ihi waqti xaadirkan loomaba baahno waxyaabahan oo kale in aad ku fakerto si fiican u fakera adiga gabadheenna waa gabar aad u wanaagsan mideeda kale sooyaana horaan kuugu sheegay magacaas ma raba inaan maqlo dhowr mar ayaan ku dhahay magacaasoo kale gurigaan markaan jooga ha igu soo qaadin zooyaa noloshaas ayaa dooratay inay ku noolaato haddana ha ku noolaato mideeda kale gabadhaada kale ayaan kaala hadlayaa u sheeg guriga aabbaheed in uu yahay uuna mar walba ka shaqaynayo amarkayga haddii iyada aysan diyaar u ahayn amarkayga in ay ku shaqaysana nolosheeda iyada ayaa xur u ah zooyaa kale ha noqoto hadday rabto halo sooyaa gabadhayda sooyaa marunbaa buujaahooda inay shirkaddeena 5 milyan ku darsato adiga maxaa kugu dhacay indhahaaga isku beddeleen ii sheeg mise booskii kalsoonida shaki ayaa galay laakiin yaash arrintaas sidaan u wan sidoo iga qariyay aniga zooya aabbaha si walba ku farxad geli wax walba ayuu samaynayaa deenta shirkaddan lagu leeyahayna wuu ka bixinayaa laakiin aniga midaas ma oggolaanayo maxaa yeele aniga waxaan rabaa shirkaddan inay burburto riyadaas si ay iigu rumoodo zooya waa inaa walaalkay nin fiican uga dhigaa zooya adiga soo imadhin walaalkaa waa nolosheeda haddii aan anaga ka shakino dadkoo dhan maxay u qaadanayaan zooya ii sheeg dadkoo dhan maxay ka fahmayaan walaalkay buujaha haddii ay shirkadda lacag ku darsato maxay dhibaysaane qof walba ayaa shirkadda lacag ku darsan kara waxaa laga yaabaa mataqaanaa maalintaas inayba arrintaas darteeda gaariga u wada saarnaayeen waad og tahay adiga 5 milyan waa lacag aad u fara badan teeda kale waxaa laga yaabaa buujaha inay ilowday ninkeeda arrintan inay u sheegto adiga waxba ha ka welwelin mideeda kale iyada keliya maaha dadka lacagta shirkadda sheerka ku darsada dumaashi adiga mar walba buujahooda maxaa ugu shakinaysaa ii sheeg kasta ay naagtaa ma ugu shakinaysaana adiga dumaashi khalaas bisa may adig aada u mahadsantahay may mahadsanid aniga ma
aqaano waxaan ku fakiray aniga si xun ayaan u fakiray aniga qalbigayga ayaa si kala noqday aadaa umahadsantaa ma ogtaa iyaash asaga aniga aad ayuu ii jeclaa maxaa yeele dhibdhan maba ii ogolaanba maalin maxaa dhacda mataqaanaa aniga inaan jikada galo kadib waxbaan rabay inaan kariyo aniga mindida ayaa i qashay asagana mindida markii ay qashay ma arkino wuu ii diiday inaa aniga mar dambe aan jikada galo yaash asaga aniga aad ayuu ii jeclaa wax dhibeena maba ii ogoleenba aniga niyadeeda wax dhaawacayna yaash mar kasta uu iga ilaalin jiray yaash aniga dhibdhanii ma uusan ogoleen zooya doqonka xumaa adiidyaa hooda muxuu kuu sheeganaya ii sheeg asaga wuxuu raba ha ii dhaho laakiinse aniga lagama yaabo yaashkayga riyadiisa in ay burburto ma ogolaanayo runtaa waay dumaash aniga waan kugu faanaa maxaa yeele adiga waxaa tahay qof karti badan waxbaa ka welwelin walaalka yaash adiga mahadsanid maaye adaa u mahadsan tahay maxay ahayd gabadhan xunta ah waddo qaldan iisa tilmaant meel xuna ka dhacdee balaayo ku aragti adeerka igraalna qab ciwaankan ayaan raadinay ma ii tilmaami kartaa adigoo raalli ah ma ii sheegi kartaa meesha ku yaal sugbe haa dabcan iyaarkayga oo akharan ikan dariskayga oo wasraacbe nakeen magu ciyaaraysa adiga san kuga ciyaara iyaarkayga ninka weynan qay nakeen yaqay maa sanid waa isku leenahay 2 saac oo kaamil raadinaya mogtahay 30 daqiiqan buu geeyaa hooyo meeqa saaca isoo wacaysa adiga waddada ayaan ku soo jira aniga gurigoon u soo dhowahay haa araaska hadda asaga fariskiisa ayuu ku laabtay anigana hadda waa inaan gurigayga u laabtaa aabbaheena sheekadiisa waa inaan soo afjaraa ilaa iyo haddeer qaa'inkii aad daacad u tahay goormeed hurdada ka kicisaa aniga waan ogahay adiga waxaad u malaysaa ninkayga yaash iyo adiga iyo adiga buja buja hodha ayaa la dhahaa
teeda kale magaceeda markaad sheegaysa muxuu kugu adag yahay waa inaad la qabsataa magaceeda caadi iska dhig dhegeyso ayaa shirkadda sheer la noqotay weliba iyadoon adiga kuu sheegin ugu dambeynna lacagtaada ayay sheer kula noqotay adigana waxaad rabtaa shirkaddan inaad burburisid laakiinse aqligaaga xaguu jiraa ilaa shirkadda lacagtaada ayaa ku jirto sheekada lacag ma taagna sheekada kalsooni iyo jeceyl ayay taagan tahay jeceyl idhigayso ani buujaa aad baan u jeclaa ayada lacagta markay i weydiinaysay aniga wax culeysa umama arkin maxaayan aniga lacagta maba jeclayn marka hore lacagtaas haddii aan ku bixiyey jacayl waqtil xaadirkan waxaan diyaar u ahaa inaan ku burburiyo naciib burburinteedana aniga waan ku raaxaysanayaa middeeda kale wax walbo ninkaaga magaciisa ku saabsan aniga waan burburinaya oo ma dhaafaayo raaxadeeda ugu weyn waxay tahay shirkaddan aad u jeed gebigeeda in aan burburiyo dhulkana aan ku daro